السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن خيارتنا داوانا يساي ميلك استود كتشوكتان دافع عالم رمضان مبارك كسور دوادا وركع عاوانا دين حين وحا وقدور رون حيسد كتا غنبري قد حي دقالا كسو عصبونا دي وقوي إثيوبيا يا أبار بان oo ka dhacday Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalida qodobada wararka hadda inta ku soo koobay isagoo faahfaahsan gobolka bariga dhexe waxa si weyn looga dareemayaa saansaan colaadeed iyo diyaar garow military madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ka baaraandegayo duulaan ka dhan ah Iran kadib markii wadahadaladii ka dhacay Muscat iyo Geneva ay fashilmeen maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ayaa ku sugan gobolka sidoo kale dalal Yurub ah ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay inay ka baxaan Iran warbaahinta Al Jazeera ayaa sheegtay inay bartilmaameedkeeda ugu weyn uu noqon karo saraakiisha ilaalada kacaanka Iran ay hoostaga hogaamiyaasha sare Ali Khamenei dalal badan ayaa diiday inay saldhigyadooda laga weeraro Iran iyagoo ka cabsi qaba falcelin ka timaada Tehran haddii dagaal dhaco wuxuu saameyn ku yeelan karaa bariga dhexe Afrika iyo koonfurta Asia sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa si adag uga hor yimid go'aankii maxkamadda sare ku laashay cashuuro uu ku soo rogay ganacsiyada dibadda ka imaanaya wuxuu sheegay inuu saxiixi doono amar madaxweyne executive order lagu soo rogay cashuur caalami ah oo dhan 10% wuxuu adeegsanayaa section 122 ee xeerka ganacsiga 1974 kaasoo ogolaanaya in la saaro ilaa 15% cashuurta asaasiga ah sidoo kale wargeyska The New York Times ayaa sheegay in Cuba ay waajahayso xaaladii ugu xumeyd abid xayiraad Mareykanka ee shidaalka iyo ganacsiga ayaa sababtay shidaal yaraan iyo hoos u dhac dhaqaale dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay tallaabo ka dhan ah cid kasta oo la ganacsata Cuba waxaa lagu xasuustaa kaalinta ay ku lahayd dagaalkii qaboobaa iyo taageeradii ay siisay Ethiopia 1977 dhanka kale shirkad ku taala Netherlands ayaa qorsheynaysa inay dhisto xarun hogaamineed oo cusub iyadoo la helayo maalgelin malaayiin euro ah si loo horumariyo hal abuurnimada tiknoolajiyadda Yurub waxaa ka socda horumar dhinaca ganacsiga maalgelinta iyo tiknoolajiyadda si loo abuuro fursado shaqo iyo koboc dhaqaale Ukraine iyo Ruushka madaxweynaha Ukraine Vladimir Putin ayaa sheegay in weli jiraan fursado lagu soo afjari karo colaadda si sharaf leh iyadoo la bilaabayo wadahadallo cusub dhanka kale tartanka Winter Olympics 26 oo ka socda dalka Italy ayaa la filayaa inuu dhamaado 22 February iyadoo xafladda xiritaanku la filayo inay noqoto mid weyn wararka ka imaanaya Afrika Sudan khubrada United Nations ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya dambiyo aad u culus oo laga yaabo in lagu tilmaamo xasuuq intuu dagaalku ka socday Darfur dhanka kale inkasta oo war gaar ah laga qorin maanta colaadda Ukraine waxay saameyn ku leedahay suuqyada iyo siyaasadda qaar ee Afrika wararka ka imaanaya Muqdisho sarkaal ka badbaaday qarax Muqdisho General Cabdirasaaq Afguduud oo ka tirsanaa hoggaanka sare caafimaadka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax loogu xidhay gaadhigiisa nooca Probogos xilli uu ku jiray salaadii subax qaraxa ayaa burburiyay gaadhigii balse wax khasaare nafeed ah ma dhicin weerar noocan oo lagu beegsaday saraakiisha ayaa ku soo badanaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qaraxyada gaadiidka lagu xidho ayaa hore u galaabtay saraakiil badan amniga Muqdisho ayaa weli waajahaya caqabado la xiriira falal amni darro oo soo noqnoqda dhanka kale hay'adda World Food Program WFP ayaa ka digtay in gargaarkii cuntada
ee ay siin jirtay Soomaaliya la jari karo bisha afraad sababo la xidhiidha maalgelin la'aan. Ugu yaraan 4.4 milyan qof ayaa wajahaya cunto yari daran. Ku dhowaad 1 milyan oo qof ayaa la ildaran gaajo aad u daran. Laba xilli roobaad oo baaqday, colaad iyo hoos u dhac ku yimid maalgelinta bani'aadanimada ayaa sababay xaaladdan. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah dalalka ugu nugul isbeddelka cimilada. Dhanka kale waxaa inoo falanqeynaya Cabdisalaan Brown wararkii sheegayay Soomaaliya ku doodi jirtay ahayd in Somaliland la keenay Falastiiniyiin. waa tan Cabdisalaan inoo falanqeynayo warkaasi been buu noqday. talow Soomaaliya maxay odhan doontaa? Sii daa Cabdisalaan. waxaan doonayaa inaan idinla wadaago beenihii Soomaaliya adduunka ay ka iibin jirtay inay noqdeen kuwa isa soo xidha. arrintii ahayd dadka reer qasta ee reer Falastiin baa la soo rarayaa oo la keenayaa Somaliland. arrintii waxay noqotay waxba kama jiraan. dadka reer qastana meeshooda ayaa dibadejin loogu samaynayaa. lacag dhan 17 bilyan ayaana lagu kharash garaynayaa sidii dib u dhis loogu samayn lahaa. geesta kale haddaba wararkan beenta ah iyaduna waxa sida oo kale dhuri jirtay Al Jazeera oo meelaha ka sheegi jirtay, balse arrintii waxay noqotay arrin la soo gabagabeeyay. wadamo muslimiina ayaa noqon doona kuwa nabad ilaalinta u jooga, kuwaasi oo Azerbaijan iyo ay ka mid yihiin wadamo kale. marka bal horta wixii wara ee jira waan idinla wadaagi doonaa, laakiin beenihii waa isa soo xidheen. maantana maxay ku andacon doonaan ee ay odhan doonaan? dadka reer Falastiin baa la soo rarayaa, waa taa filinkeedii soo xidhmay. wararka ka imaanaya dhanka iyo Somaliland, wargeyska Disash ee Greega ayaa qoray in ay mudan tahay in Greegu aqoonsado Somaliland. qoraalku wuxuu sheegayaa in iskaashiga rasmi ah oo u dhexeeya Hargeysa iyo Athens uu Greegu siin karo saldhig istiraatiiji ah oo gacanka cadmeed ah. arrintani waxay qayb ka noqon kartaa tartanka saamaynta badda cas, gaar ahaan iyadoo Turkigu doonayo inuu kordhiyo joogitaankiisa gobolka. weli waxaan ku guda jirnaa wararka Somaliland. Somaliland ayaa sagootin u samaysay 25 khubro ah tababar u tagaya Israa'iil. waxay baranayaan dhinacyada biyaha iyo waraabka. tani waa tallaabadii ugu horreysay kadib aqoonsiga Israa'iil 2025 bishii 12 ay siisay oo ay Israa'iil waxay ballan qaaday taageero dhinacyo biyaha, beeraha, tiknoolajiyadda iyo ammaanka. Somaliland waxay si gaar ah ugu baahan tahay xalal la xidhiidha biyaha iyo abaaraha soo noqnoqda. dhanka kale warbaahinta caalamka oo dhan baa Somaliland hadal haysa. waxay noo falanqeynayaan saaxiibkeen Sida. xalay ilaa maanta Somaliland waa fayral. wixii warbaahin caalamka ka warami jirtay oo dhan waxaan Somaliland hayn ma hadal hayaan. waxaa ku jira warbaahinada weligood Somaliland afkooda soo marin iyo Afrikaba hadday ka hadlaana dhif iyo naadir waxay soo dhigi jireen halka u hooseysa, balse Somaliland wax ku daabaceen headline ka sareey. waxyaabaha cajiibka waxa weeye waxa soo hadal hayna Somaliland $1 kuma bixin, balse dunidan isdhelan rogaysa ee si badweynta u kacsan iyo awoodaan isriixriixaya ayaa Somaliland fadhiga ugu adeegay iyadoo halkaas ka fadhida. kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu helay xogo odhanaya Ethiopia iyo Imaaraadka ay aqoonsanayaan Somaliland, naf xarbigii wuxuu isku sii daayay Imaaraadka. balse Maxamed bin Sayid uu ogaa inaan wax kale hadlayno uu ka cudur daartay inuu la kulmo Erdogan. isla habeenimada ku xigtay wuxuu isku sii daayay Addis Ababa. Abiy Ahmed buu la kulmay isagoo baryotamaya. labadii bilood u dambeysay 3 jeer buu Erdogan ka hadlay Somaliland isagoo 10 sano u dambeysay afkiisa aan hal mar soo marin Somaliland. waxa keenaya inuu arkay inay Somaliland aqoonsigeedu dibadda yaallo, sidoo kale in board laga creeyay Soomaaliya oo ku tiri dhul baan ku siinay, biyaan ku siinay, waliba isagu biyuhu doonay waa biyaha Baabul Mandab. wuxuu aaminsanaa haddii Xasan Sheekh uu saxeexo badda Soomaaliya ilaa iyo waxa tagi kartaa Baabul Mandab, waayo biyaha Indian Ocean ka isagu waxba kuma falay. waxay ku noqotay qaadan waayo sababta Soomaaliya loo heshiiyay kaliya waxay inuu helo Baabul Mandab. wuxuu la Xasan Sheekh maadaama uu saxeexay uu haysto laysanka sharciyada Soomaaliya, Baabul Mandab adiga ka talaya. hal maalin ka bacdi aqoonsiga Somaliland khudbadii isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ku wada qabteen Ankara uu kibirsan wuxuu lahaa ma aqbalayno aqoonsiga Somaliland. mar labaad usbuucii hore wuxuu tagay Sacuudiga isaga iyo Maxamed bin Salman ayaa waxay si wada jir u diideen aqoonsiga Somaliland, balse ugu dambeyn markuu Addis Ababa soo gaaray waxa ka muuqatay inuu soo quustay inuu ogaado in Soomaaliya waxba ka qaadi karin Somaliland, sidoo kale inuu ogaado Somaliland inay xulafo waaweyn haysato. hadda uu baryotamaya, hadda wuxuu iska dhigayaa nin waayeela oo talo soo jeedinaya. ugu dambeyn Somaliland way guuleysatay
وروحنا عاودين هنا وانا جاينتها تاني انت ندبو كل ما انها بين ما وناكسن خيارتنا داوني ساي لايك تيا شير تيا كومنت بليز كومنت كوانو باهني واللايك توانو باهنو شير توانو باهنو سبسكرايب توانو باهنو جايز بليز and بليز باي